بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جزا الله الشيخ عبد الرزاق آدم إلهي خير بدن هسي خيرا آد بموضوع كان أتناولي وإفاديي وسودويي. runtii موضوع dheer buu ahaa. hal muxaadaro iyo laba muxaadaro midna kuma filla sida isba uu sheegay. mawaadiic iyo faqaraad badanna waqtiga darteed ayuu uga tegey. saa darteed marka mawduuca kan lama ilmaamin karo, waqtiguna waa dambeeya, waana mawduuc xasaas ah. horta ogaada, mawduuca kan waa mawduucii ugu horreeyey oo bidco ah oo soo baxa, gaalaysiintu. qofka in la gaalaysiiyo waa mawduucii ugu horreeyey ama firqadii ugu horreysay oo soo baxda waa firqat alkhawaarij. dadka ay gaalaysiiyeen waa kuma, waa cali, waa cuhmaan, waa ikhyaartii oo dhan, waa saxaabadii oo dhan. waa shaacirkoodu ninka uu leeyahay ninkii dilay cabdiraxmaan bin muljim oo dilay caliy bn abi aalib radia allahu canhu, yaa darbatan min taqiyin ما أراد إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يعني ننكاسو بوادين يا أوليه وحو إلهي إنه قد وادو ربي. يعني علي أو النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إن أذيركيس قبدي سنة قبي قفكي أوريي أو رميينا النبي قلنا وبشاري جنة أيو وحو ليه إلهي من قد وادنا دلكيس. أرين كان إن واحد كان يوم jahli ayaa keenay iyo nusuusta sharciga ah inaan la miisaamin ayaa arrinkaa keentay. asal ayada taa u ah. qof kasta oo silaaxaasi ka maqan yahayna waa ku dhacayaa. yani alxukmu cala annaas, dadka in la xukmiyo cilmi bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay cadli bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay raxma. walidaalika ba ahlu sunna waljamaaca waxay ku sifoobeen cadaala iyo raxmad. arxamu lkhalq iyo acdalu nnaas inay yihiin. kuwii ayaga gaalaysiinayey ayagu gaalaysiin mahayaan. cali bn abi aalib nimanka saas ku xukminaya wuxuu yidhi min alkufri faruu, gaalnimayba ka soo carareen. ma garatay? iska daa inay gaala yihiin, ayagaa gaalo ka soo cararay. oo maxay yihiin? ikhwaanunaa bagaw calayna, waa walaalahay nagu xadgudbay oo si la yeela aan la garanahayn. haddii nin kula dhashay aan waxba ilaahay maxaan ku idhaahdaa xikmad siin, seebaad yeelin? allah ku baday, waa allah ku baday wey. min alkufri faruu, gaalnimay ka soo carareen. saa darteed marka waxaa loo baahan yahay dadka marka la xukminayo qof isagii cilmi aan lahayn, oo ay dhici karta salaadihii iyo soomkii iyo sakadii iyo waxyaalihii maaragtay masaa'ilka furuucda ahayd aan aqoonin, inuu masaa'ilka waaweyn oo shareecada dhiigaga iyo gaalnimada iyo wixii la halmaala u dhigto waa shiddo. waxa weeye waxaa fiican qofku inuu tadaruj ka bilaabo oo cilmiga maaragtay cibaadaadka iyo wixii la halmaala uu barto. dabadeedna masaa'ilka qaarkood xataa nin shiikha iyo laba iyo saddex iyo xataa arrinkaa kama baaraandegi karaan. waxay u baahan tahay fatwa jamaaciya. waa meeshii ay ohan jireen masaa'il buu ka fatwoonahayaa. haddii cumar la weydiin lahaa la jamaca laha ahla badrin. haddii cumar la weydiin lahaa ahlu badr buu ohan lahaa war bal isu kaalaya, war masaladaanaa timid, war maxaa tala ah? hal wiil oo dhallinyaro ah baa iskaga baaratay suuraba iskaga tuurahaya oo odhanahaya kaasna waa gaalnimo, kaasna waa saas. waan taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun. waxyaalihii laga digay ma garatay. walaa taquuluu lima tasifu alsanatukum alkadiba hada xalaalun wahada xaraamun litaftaruu cala allahi alkadib in aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun. arrinkaasi waa arrin khatara. qofka loo baahan yahay inuu adkeeyo, inuu tawaruco. diyaana loo baahan yahay, diyaano iyo cilmi ayaa loo baahan yahay. ma ahan in hadalka la iska tuuro oo ninka aad rabtid iyo ninka adigu aad necab tahay aad maaragtay maxaan ku raha. waxay odhan jireen culimmadii hore, nin baa wiilkiisii waxaa soo dilay macallin baa soo dilay. markaasaa wiilkiiyo booyahayaa u yimi macallina waxaa soo dilay aabba waxay soo dilay macallinkii. markaasuu yeetaan ku dhiga haddaadan arag arki doontaa xadaanii fulaanun can fulaanin can fulaanin mucallimuu sibyaanikum shiraarukum mucallimuu sibyaanikum. kuwa qur-aanka ciyaalka idinkugu dhiga waa kuwa idinkugu shar badan.
يعني waxa weeye ninkaas dadka garanaysa maaragtay wixiisu wax macna ah inaynu ku fadhine ay tahay nin xanaaqay arrinkaas marka waa arrin takfiirku xukum sharci ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa iska leh dadkii ka dhaxlay oo ahli cilmiga aana ayaa looga dambeynaya masaa'ilkaasi inay dalabadu ay faraha la galaan waa arrin aad iyo mazlaq khatiira weeye waa mazlaq khatiir ah oo aad iyo loogu kufo weeye arrinka la iska ilaaliyo arrinka kale oo runta waxa weeye shiikhu wuxuu aad ugu dheeraaday in la ogaado kufriga mutlaqa ah oo caamka ah oo la yiraahdo qofkii saa yeela waa gaal iyo qofkii laftigiisa in la kala saaro oo waxaad weydiin kartaan maxaa adilla u haysaa ha adilla u hayna waxa adilla lahayn sideedaba sharci ma ahan wada ogtihiin oo ninba waxa ka lumay raaxiladiisii uu watay ayaa ka dhuntay geed buu seexday waa isqibleeyay hadhow buu inaha kala qaaday masahashi baa kor taagay markaasuu ila allahumma anta abdi wa ana rabbuk soo gaalnimo ma ahan waa gaalnimo ina ilaahay tiraahdo adoonkaygii baa tahay anna waxaan ahay ilaahagi laakiin akhtaa min shiddati alfarah rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana arrinkaas marka waxa la yiraahdaa waxyaalaha mawaanicda ah maanic maxaa la yiraahdaa sideeda maanic waxa la yiraahdaa gabadhii salaadii waa ku waajibtay waqtigii waa galay laakiin xaa'ido weeye ma tukan karto waa maanic ninkii aabihiis dhaxli lahaa oo aabanimadii u sugnaatay oo dhaxalkii u sugnaatay waxa yimid in diintii kala tagsan tahay waa maanic ma dhaxlayo waxa maanic la yiraahdaa marka taxaqquq shuruudu maxay tahay shuruudaasi qofkaasi waxaas inay gaalnimo yihiin oo aan shaki ku jirin oo aan ahayn wax maxaan ku iraahdaa ta'wiil gala waa kow mawaanicdina la waayo mawaanicdu waxa dhici karta inay tahay jahl waxa dhici karta mawaanicdu inay tahay khata waxa dhici karta mawaanicdu inay tahay maxaan ku iraahdaa ta'wiil waxa dhici karta inay ikraah tahay intaba waa dhici karta illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iimaan gaalnimadii waa ku hadlay kelmadii laakiin mukrah weeye xukunkii qabsan ma hayo waxa dhici karta waxa inuuna garanayn sida xadiiska Aisha waxa agtayada haweenkii heesayay nabiyun ya'lamu ma fi ghadi ma garatay markaasuu nabi wuxuu kaadiya taadaaya hadda qofkii yiraahdo ya'lamu ma fi ghadi wa ghaybka yaa og ilaahay kaliya og waa ku gaaloobaya laakiin jahligii baa lagu cududaaray jahligii waxa lagu cududaaray ninkii yiraahdaan dhinto idila oo maartay iguba oo kala tuura hadii ilaahay aan ka baxsan karo kale wuxuu qaatay inuu ilaahay ka baxsan karo markaas ay maxaa saa u yeeshay khashyataka ya rab wallahu tamidaf marka mawaanicdaas oo dhan ama jahli ha noqoto ama ha noqoto ikraah ama khata iyo nisyaan ha noqoto waxaas oo dhan baa mawaanic la yiraahdaa mawaanic i'tibaar bay leedahay i'tibaar ayay leedahay saadarteed xukunka lagu qaadanaya laakiin waxa hadda badatay qof aan waxba la weydiin oo wixii wuxuu la jeeday aan la garan oo aan maxaan ku iraahdaa la istifsaalin oo hadalkii aan la dhuuxin in la yiraahdo horay looga gooyo warqadii maxaan ku iraahdaa gaalnimada ah arrinkaasi waa arrin mazlaq khatiira weeye axaadiistii shiikhu sheegay oo ogeydeen ayaa meeshaan taal oo qof hadduu qofka gaal yiraahdo waxa weeye haddii qof meel cilla dhicmaysa qof bay ku foorarsanaysaa mana ahan hadal iska sahlanoo koob shaah la cabaya maahan waa naagtu kuuma xiranto waa qubuuraha muslimiinta lagu duugi maayo waa dabiixadaadu xalaal ma ahan waa lagu dhaxli maayo ahlu naar baa tahay sideeda markaan ka sheekeeyno qofkan waa muslim iyo waa gaalna anagu daahirkan ka hadlayna man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika almuslim kasa muslima ma garatay anagu waxa qalbiga uga jira ilaah baa ka warqaba taas ilaah baa iska leh jannada ilaahayna hada khazaa'inteeda dadka gacanta looma gelino hadii loo gelin lahaa waxaan u maleynayaa dad baa dhowr qof kali ah siin lahaa oo harag sagaaro iga kacbiyo iga durugma leh Soomaalida kuma mahmaada oo wax yar oo jaan ah raxmadda ilaahay wa rahmatihi wasi'at kull shay dadka oo dhan oo la banaanka aada anaga kaliya maahan ilaahay raxmadiisu intaas waasac bay ka tahay hadalkaaga iyo gaalnimadaaduna i'tibaar yeelan mayso hadayna daliil sharci ku dhisnayn waxa weey naqdigu iyo jarxigu waxa weeye waxa laga qaadanaya ahlkiis nin baa yiri baa la yiri fulaan waa daciif oo maxaa ku tiri waxaan arkay isoo dameer fuushan oo ordahaya waxa qof lagu daciifiya raaytuhu yarkudu ala birdawn mid kale waxa hebel waa daciif baa leesiyay wallahi law raayta lihiyatahu wa hay'atahu
لعلمت أنه ثقة نك هذا أركض هذا وحجر كيس يفدي وناقيس قلوب وحنتيسة مرنا ما ترى هذا إنك هذا ضعيف مركا وحي وحلا قدي وحا مارت ميزان شرعي كل سنين هو كل سنة أرنكاس أرن آد لسكاء إلى عليه وباهوي مسألة كانوا كنت سنيسة إن علماء أي كلا تفريقين هي بين النوع والمعين وحا الدليل أحمد بن حنبل خلق القرآن سو قال لما وما أركين سو مدي دنين سو كتب كما ألفين سو لقما امتحان في نادي خلق القرآن رجي سوبيي كان يدعو لهم أو دعينا هي إلهي إنه كضعفه سيدو كلا شافعي مركو حفص الفرد أم حفص القرد لماذا والي هذا ويري القرآن مخلوق كفرت واد قالوا ذي بي لكن ما أورنين هل الرددي هل هل مقعيسيو منا ما أورنين أركاس waxay ku tusinaysaa التفريق بين النوع والمعين إلا kala saaro ayay ku tusinaysaa saadarteed marka arinka kan in laga tahayubo weeye oo laga boqo oo qofku diintiisa ilaashado oo uu ku dhiiran waxyaalaha rag kale ku dhiiran waayeen dadka ridada loo dilay caalam islaami intay soo noolaayeen wada tirsan weeye wada tirsan oo hadda maxkamad la keenay oo culimo wax weydiisay sida xalaaj iyo rag la mid ahaa ayay ahaayeen dad kooban weeye ma garatay culumaana ka fariisatay ma ahan in ayro gabana maxaan ku iraahdaa qof aan maxkamad la keenin oo aan warkiisa la ogaanin oo wuxuu qaban la ogaanin oo wuxuu la jeedan la ogaanin inaan aniga iska iraahdo waa galmsana ku fuliyo xaq uma lihi ma garatay hadalkaasina wuxuu keenay tanaabus bil alqaab kan waa murtad kana waa murtad kana waa murtad waxaas oo dhan islaamku ma tixgelinin ضوائفta aragteen oo tirada ka badatay oo isgaalaysiisay culimadu waxay yiraahdaan maqaalaat al-islaamiyiin wa ikhtilaaf al-musallin abi hasan al-ash'ari kitabkiisu waa ka maqaalaat al-islaamiyiin wa ikhtilaaf al-musallin marka lama i'tibaarin bidcada isku kala xukumiyeen iyo isgaalaysiinta lama kala i'tibaarin aqbalu shahadati ahli al-ahwa illa al-khattabiyya shaafi'i saasuu خطابية مويه أنت كلو دن مرخاتية ده وأقبلها ما حد عي أيوه بينت بنيستان ساسو كديدي إن بينت بنيستان أيوه كديد هدي الله سكوا من لها خف إيا قرابا ضد مهرين هدي ضد كاس الله سكوا من لها الأوران لها كنا ساسويري ومدة وحري لها هيد مجرته لكن وحل اعتباري منهج كوسط كأه وعدل كأه والرحمة كأه أهل السنة والجماعة يكتجين تكفيركم إنه حكم شرعي وإلهي الرسول كيسو ليهين وعلماؤنا أيويهين أرين كاس بيانين هذا يعدين هذا إليهين هل كاس اللجوتي هل كاس أيها اللجوتي هدي ذاك الأسقوط من لها بابه يسكن قل لها صادرت أرين كاسي هل لجوا أنتوبوا علماء واحد أورنجرين يخطئون هبل أخطأ فلان أخطأ كذا ما كان ينبغي ساسو يالي لكن تكفيرك إيوه ما كان بقي جيرين إن يقف قاليسيان ما كحرر جيرين حتى مارتي عقيدة أهل السنة والجماعة وكتها الله إن أمد لونا نحريسته لونا عدالة فله علمنا كل إسنادان هديك لو حوية وح إيمان إيسا وحن لا أرى والله مقل متاهات أيها اللي قال يا هذه أدبر مارت الشيخ أبو مهد علينا يا الله بركة علم كيسة يا عمل كيسة وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان